عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحجك الصعدة أيا وحي أركنين مركا آدو سو صعدو فرسك آدو سو إرينايا مركا عمر بن الخطاب با يقول وحوري ننكاسي كل أنكو نو صعداي جوك سدبوي وجوجي عمر عيدن كي ننكي أو آدو دالن أو آدو نحسن با مركا عمر سو قاري عمر هرتي سو كدعي عمر با مركا كويري منن عدو إرينيان وعبصونا آيات هاي أنكم مجان قلنا مسنين دين لقوله يهي أو دين كي بحين كروايي أو أباهن إلا عاوية آيات هاي مسنين نف بن آذن سوقويي وحق دركو السود دلي باتهاي مركز انت منا ما يهبوا يلي وحان كيم دبيور بصراء يا كيم دا بصراء فما قال لكم على العراق أبا موسى الأشعري هلكا أمير نوغاها هاي هلكا سانو جوجو دنبي إيقا دعي بو دنبي كا دعي محوية خمر بان عبي بيولي لأن أبا موسى الأشعري بان انتو قبتيبو إيقا جريبولي حدكو إمريي هاي تمهينا إيقا حيري هاي فرسنا انتو إيقو قادبو مقالة دي بصر إدحمر يو حويري نكا هلا عننا oo halla fadhiisanina oo halla saaxiibina oo ka dheeraada buu yiri wajigeeygi biga madoobayay buu marka naftaydii saddex mid bay igu sheekaysay inaan sameeyo imma inaan Aba Muusa al-Ash'ari intoon gaado aan qoorta ka gooyo imma inaan gaalada intoon iskaga biiro waxay cabayaan aan la cabo waxay cunayaan aan la cuno iyo kana aan ka mid noqdo imma inaan adiga ku imaado iga qabatid amiirka muuminiinta مركا عمر بن الخطاب يا رضي الله عنه إن ديتي مدي إلهي بك وافجيبوا لي إن قال أوتكت هيلين إن أبا موسى الأشعري سجن انتود الأرض متآد شانا هيلين مرة دانيك يسوق ديبوي أنا أقول أنت هذا حتى شقك قبل يا أبو هوش وقبل ورقد بوقري ورقد نكر عمر ومديبين السجيب ورقد وديب السجيب كله أمير المؤمنين عمر اكتسان كسعوداء وكسو سلام عليه وعاد كنت هذا حداد أمير كاغي أنا هاي ورقد يكون قرنت هاي وحق أن كقوله أبا موسى الأشعري وقدرين يسد ورقد نكا وكو كان دغيسو قابل بسو أمري وصار نقد نكي عمر ولي نكي مسيدين فرس بوسي لعب بوسي ضرب بوسي كلكم مدة ولبن أو هيي أيود هذا باي مكسر عوتن بصرة يوم مركا وقيم دابا موسى الأشعري أو خطبة دينية مركز أمير المؤمنين عمر باي صادري عجيب مستاقي وكسو سلامي ورقد أنا ويسو دي بآخر سبو كيدي ورقد دي بآخر ستي نكا فرس كاكا صار magaaladii aad la dhaxmartay marka hore la dhaxmar waxaad ku tiraahdaa la fariista la cunteeya la saaxiiba waa walaalkiin oo toobad keenay toobadu addoonka Ilaahay bay ka dhaxaysaa wixii horeen hadal iga dhaco dhan waan ka noqday ee walaalkiin ma aragtaan cafiya anna waan cafiyade Aba Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu sidii amiirkiisu uu ku amray buu yeelay halkii intuu ninka ugu yimid madaxa ka dhunkaday faraskiisii buu saaray magaaladii uu sida u soo dhaxmariyay waa walaalkiin oo toobad keenay Umar bin Khattab uu tagay Umar buu fariinta inooga soo qaaday walaalkiin la cunteeya oo la fadhiista oo la saaxiiba oo la sheekaysta oo la noolaada waa taadnimadu mas'uul ilaahay garanaya dhakhtar ilaahay garanaya injineer ilaahay garanaya professor ilaahay garanaya maalqabeen ilaahay garanaya faqiir ilaahay garanaya dhalinyaro arday aan arkay markaa bir sheekh jaamacadayna waan dhamaynay shahaadooyinkii waan haysanaa shaqana ma hayno dhalinyaro aad u fikiraya buu ahaa cilmigaaga la eegi maayo zamankana ciddaa tahay baa la isweydiiyaa buu marka horeysaba Soomaaliya qabiil baa lagu halaagay
markaasaan idhi dibloomkan aqoontaad baratay waa gooni arsaaqaduna gooni shaqo iskuma leh aqoonta baro lama diidan inaad wax barato inaad dhakhtar noqotaa lama diidayo inaad injineer noqotaa lama diidayo inaad maaragtaanay professor aad noqotaa lama diidayo inaad macaadinta arlada sida loola soo baxa aad noo barataa lama diidayo laakiin aqoontuna waa gooni arsaaqaduna waa gooni arsaaqaduna waa gooni arsaaqada marka ayaa bixiya waxbarashadaad baranaysid iyo arsaaqadaadu cilaaqa kama dhaxaysa ogow habeenkii ilmaha yar 120 habeen uu jiray calooshooyadii uu marxaladaha uu marayay uu nabigu sheegay 40 hore buu nabigu yiri waa nutfax 40 dhaxana buu nabigu yiri waa calaqa waa xinjir yar oo dhiiga 40 ku xigana buu nabigu yiri waa waslad yar oo hiliba dana 120 markuu jiro ayaa malaga loo soo dhiibaa ruuxda oo la yiraahdo ku afuuf habeenkaas 4 shay ilmaha caloosha kale loo qoro 4 shay arsaaqadiisa habeenkaas la qori buu nabigu intuu cunayo ajashiisina habeenkaas la qori maalintuu dhimanayo labiyo dhidig midku ahaanayna habeenkaas la qori ahla naar iyo ahla janna midku yahayna habeenkaaba la qori buu rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam ku salli rasuulka arsaaqadaadii habeenkaaba la qoray intay tahayna ilaahay waa ka qariyay intaad adduunyada ku noolaanaysa habeenkaaba la qoray intaad jiraysana waa laga qariyay bal ka warrama sidee noloshu ay noqon lahayd haddii ilmo kastoo inoo dhalanaya uu noo dhalan lahaa asaga oo taariikhda uu dhimanayana halkaa ugu qoran tahay see noloshu noqon lahayd balka jawaaba qisad ku saabsan ninkii jacaylkiisa aad looga sheekayn jiray qays iyo leyla dhex martay ninkii markaa qays ayaa jacaylkii leyla ayuu u waashay daraaddeed markaasuu derbiyada iska seexan jiray maalin maalmaha ka mid a waxaa la arkay isagoo jidaar dhudhunkanaya gidaar derbi buu dhudhunkanaya markaasaa lagu yidhi war qaysow maanta waalidaadima waxay kuu geysay derbiga inaad dhunkatid markaasuu yidhi uqabilu daljidaari wa daljidaar wuxuu yidhi jidaarkan aan dhunkanayo isaga maaha waxaan u jeedoon dhunkanaye gidaarkan gadaashiisa leyla ayaa degan oo jacaylkii leylaan u dhunkanayaa buu maalin kalaa la arkay isagoo ay haystood u dhunkanaya war aygana maanta maxaa kugu salliday wuxuu yidhi aqalkii leyla ay ku jirto ka soo baxay yuu ka soo baxay maxabadu eeg haddaan ilaahay jecel lahay oo nebigiisa aan jecel lahay sal allahu alay wasalam mujtamaceenna iyo dadkeenna iyo dalkeenna haddii salaada la adimo magaalada intoo baabuurada la joojiyo oo basaska la joojiyo oo maqaayadaha la xidho oo dukaanada la xidho ayay masaajidu camirmi lahayd masaajiduna inama qaadeene bal waa laysa sugi lahaay oo la odhan lahaa annaguna han tukana jamacii miskiidkii buu naga buuxiye ka soo dareere baa la odhan lahaa salaada jamaca hadda maan ku xidhan law kaana xubuka saadiqan la aطactahu hadday jacaylku uu dhabkaa yahay waad adeeci lahayd ina almuxiba liman yuxibu muiicu ninba ninkuu jecel yahay buu adeecay dhalinyarada kubadda jecel kuwa kubadda ciyaara isku ekaysiiyaan kuwa heesaha jecel kuwa fanaaniinta la yidhaha bay isku ekaysiiyaan kuwa siyaasadda jecel siyaasiyiinta isku ekaysiiyaan kuwii nebi maxamed jecel nebi maxamed bay isku ekaysiinayaan magaalada madiina ayuu nebigu soo galay calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay madiina yahuuddii la deganayd ansaar oo maalinta caashuuro la yidhaha soomaysa waa 10 muxaram weeyaan markaa buu nebigu ku yidhi waa maxay yahuuddu maalinkan ay soomayso markaasaa la yidhi waa maalintii ilaahay nebi muuse uu ka badbaadiyey waa maalintii nebi muuse iyo reer bani israa'iil ilaahay jalla wacala uu badda u dilaaciyey ee dariiqa ilaahay uga jeexay badda ee laga badbaadiyey halaagga ee cadowgoogii fircoonna la halaagay weeyaan nebi muuse soomay calayhi salaam annaguna waxaan u soomaynaa shukri iyo mahadnaq baan u soomaynaa oo waa diintayadii iyo nebigaygii baan ku dayanaynaa markaasuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi annakaa uga xaqle muuse sooma caashuuraa kal dambe haddaan gaadhana sagaalaadkaa ku dari buu rasuulku yidhi
yahuudda muxuu nebigu ku khilaafay caadaadkii kuma khilaafin bal wuxuu ku khilaafay cibaadaadkii buu ku khilaafay mujtamaca muslimiintana maanta caalamka meeshay doonaan baha joogaane dhallinyaradeenna mujtamaceennu inta badan waxayna saameeyey waa reer galbeedka tobanka cashuura waxay u soomayaan baa la yidhi waa maalintii nebi muuse ilaahay badbaadiyey ee dariiqa looga furay badda fircoon wajeeshihuna laga halaagay markaa waa shukri bay u soomayaan markaa buu nebigu yidhi annakaa nebi muuse uga xaq leh waa soomaynaa cashuuree sooma kal dambe haddaan gaadhana buu rasuulku yidhi sagaalaadkana waa ku darisaan yahuudda u khilaafay cibaadadii buu nebigu yahuudda ku khilaafay innagana maanta dhaqankii baan ka qaadannay tarbiyadii baan ka qaadannay tacliintii baan ka qaadannay zawaajkii baan yahuudda kaga dayanaynaa tacliintii baan kaga dayanaynaa dhar xidhashadii baan kaga dayanaynaa marka saxaabigii dahabkii nebigu uu ka tuuray inuu qaato uu iska diiday limaada waxuu garanayaa nebi maxamed qadarkiisa sal allahu alayh wasalam waa jiilkaasi qarna alawal waa waxaan lagu gaadhi karayn bay kamid tahay arrimahaasi inay gartaan nebi maxamed qadarkiisa calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid uu nebigu ku yidhi nin ansaariya buu ka yidhi inantaada ii guuri aniga markaasuu yidhi ninkii ansaarigii nicama wa quratu caynin buu yidhi oo nebi allow adiga ayaa ku heli kara buu yidhi adiga ayaa ku heli kara markaa buu nebigu yidhi anigu ma rabiye waxaan u rabaa julaybiib baan u rabaa julaybiib wuxuu ahaa nin magaalada madiine oo dhan guri walba lagaga sheekaysto la yaqaano dabeecaddiisa oo dabeecad waxaa lagu yaqaana xoogaha akhlaaq xumo ah dadka ayuu la kaftami jiray xataa haweenkuu la kaftami jiray markaasaa dadka reer madiine o dhan waxay isku sheegeen gabdhihiinna julaybiib ha iskaga dhisina waa nin dabeecaddiisu aan fiicnayn oo dumarka meelaha iska marmarayo hadduu doono la kaftamaa marka waa nin akhlaaq xun weeyaan akhlaaqdiisaasi aan wanaagsanayne waa lagu sheekaysanayaa madiine o dhan baa ku sheekaysanaysa waa ninkaa ninkuu nebigu leeyahay ninkii reer madiina inantaadii aniga isii markaasuu saxaabigii yidhi nebi allow adiga ma inantayda ayaaba kuu heli kara haddaad adigu tidhi isii waaba nicmad ilaahay aniga isiiyo indhahayguna way ku raaxaysanayaan inanteediyo xaas adiga ku noqotee hel buu ka yidhi markaasuu nebigu yidhi anigu ma rabiye laakiin waxaan la rabaa buu yidhi julaybiib baan la doonayaa julaybiib markaasuu yidhi xataa ushaawira ummaha hooyadeed baan ka talagelinayey ii kaadi buu ka yidhi hooyadeed baan la soo tashanayay waxaa la yidhi reer madiina curfi dhaqan waxay lahaayeen gabdhuhu haddii ay gaadhaan da'dii gabdhaha lagu guursanayey ninka gabadhaa dhalay inantaa dhalay intuu nebiga u yimaado ayuu odhan jiray inantaydii way qaan gaadhee nebi allahu haddaad inantayda adigu aad doonaysidna waa kuu diyaar haddaad cid kale u doonaysana waa kuu diyaar dadka qofka aad khayr ku tuhmayso inaad inantaada la doondoonataa waa min asunna weeyaan xabse binta cumar markuu ninkeedii ka dhintay cumar binu khadaab intuu socday ayuu cuhmaan u sheeguu ku yidhi haddaad doonta inantayda xabse waan kuu dhisi markaasuu cusmaan yidhi waan soo fikiri isku noqday markaasuu yidhi yaa cumar waan fikirayoo waxaa ii soo baxday sanadkaa maanta inaanan guursane hay sugine walaal iga raalli ahow jazaaka allaha khayr buu ka yidhi haddana maalin kale cumar socdo abubakar buu la doontay xabsa wuxuu yidhi yaa abaabakar sidiiq haddaad doonta inantayda xabse waan kuu dhisi waa kuu diyaar markaasuu abubakar uu ka aamusay limaada muxuu cumar inantiisa xabse uu cuhmaan iyo cumar iyo abubakar ugu bandhigayaa ma taqaanaa curfiga beriga muslimiintu ay lahaayeen waxaa ka mid ahaa inantu hadday gaadhagda'dii gabdhaha lagu guursanayey waxaa u soo haasaawaya aabbaheed walaalkeed adeerkeed iyo abtigeed halka innagu aan leenahay soo eegeego waxaan idhahdaa ya aabba mid shaqeeyo uun dee ya weliba hay-adaha u shaqeeya hay-adaha ogaa hay-adaha kharash badan baryahan moogtaha laa ilaaha ila allah
soo eegeega maaha adaal inantaadu inay dibadda u soo baxda maaha waqarna fii buyuutikunna inantaadu waa inay xagga dambe fadhidaa jilbaabka ugu horreeya gabadha muslimaddu ay xidhanayso waa inay guri joog noqoto weeyaan baahideeda wixii dibadda ka yaallana markay u baahan tahay ama aabbaheed ama walaalkeed ama inankeeda ama adeerkeedu aabba la dhashay ama abtigeed hooye la dhashay ama walaalkeed baa soo kaxaynaya oo soo raacaya limaada maxay u soo raacayaan maahin tasallut iyo saytarayn gabdhaha la saytaraynayo oo ikhtiyaarka laga qaadaya hamoodin inan yahay muslimadii bal adigu ku ilaalinaya waa gaardagoorkaagii waa kii ku ilaalinayey adigu kaa ilaalinaya cadowgu kaa ilaalinaya tuugtuu kaa ilaalinaya dadka mujrimiintuu kaa ilaalinaya fasaqaduu kaa ilaalinaya sida lacagta iyo dhaymanka meel qaaliya loo dhigo meel aan la arkayn loogu rido ayaa gabadha muslimadda ee mu'minadda ay diinta islaamku meel fiican u dhigtay aday ku ilaalinayaan innagana maanta waxaa laga dhaadhiciyey diinta islaamku dumarka ikhtiyaarkii bay ka qaado aqalada fadhiya bay tiri aqalka fadhi sharaftaada aqalka inaad fadhida kugu filan sharaf bay kuu tahay guriga inaad fadhido soo doon doona maaha abibakr cumar isagaa u doonto u haasaaway inantiisii inanta aad dhashay dadka aad khayr ku tuhmayso inaad u bandhigtaana ceeb maaha maanta innaga xaggeenna waxaa loo arkaa hadduu ninku inantiisa uu ragga u yar u soo haasaawo waxaa lays odhan buu isleeyahay war matu cagaluu hayaa nagu camaynaya cumar baa socdo cumaan u bandhigay cumaan uu jawaabay abubakar buu u bandhigay abubakar waa ka aamusay muddo yar kadib waxaa soo doonay xafsa radia allaahu canha nebi maxamed baa soo doonay calayh salaatu wasalaam daadna markaa buu nebigu guursaday markii guurkaasi uu dhammaaday ayaa maalin dambe cumar iyo abubakar baa kulmay abubakar baa hadalka qaatoo yidhi yaa cumar malaha qalbiga waxbaad iigu haysaa markaasuu yidhi haa waan kuugu hayaa horta baan cumaan u bandhigay wuu ii jawaabay jawaab waafiyuu i siiyey adigana waa kuu bandhigay waa adiga aamustay haayana imaad odhan mayana imaad odhan markaasuu abubakar ku yidhi anigu waxaan ogaa nebi maxamed oo xafse hadal hayaan ogaa markaas sirta nebiga inaan sheegaan diidanaa hadduu nebigu xafse uu dhaafi lahaa uu iska dayni lahaana wallaahi anaa kaa guursan lahaa buu ka yidhi saasaa markaa nebigu ku ogaaday reerkan reer madiina reerkan ansaareed gabadhoodu inay qaan gaadhay waxau nebigu ku ogaaday baa la yidhi nin kastoo ansaariya hadday inantiisu qaan gaadho intuu nebiga u yimaaduu odhan jiray yaa rasuulallah gabadhaydii way gaadhay da'dii gabdhaha lagu bixinaye haddaad adigu doontana waa kuu diyaar haddaad cid kale u rabtana waa diyaar saasuu nebigu markaa u weydiistuu ku yidhi inantiina ii dhisa markaasuu yidhi nicima wa quratu caynin yaa rasuul allah waa nicmad ishayduna way ku raaxaysaniye waad heshaa markaabuu nebigu ku yidhi anigu maaha waxaan rabee waxaan u rabaa julaybiibna waa ninkaan nii soo sheego waa la yaqaana dabiicaddiisa markaasuu yidhi julaybiib haa uu istaagay ninkii inanta hooyadeed baan la soo tashanaya dee baliikaadii markaabuu nebigu yidhi haya la soo tasho markaasuu ninkii saxaabigii islaantiisiibuu u yimiday wuxuu yidhi inanteennii waa la soo doonay ayaa soo doonay bay ku tidhi markaasuu yidhi rasuulki ilaahay baa soo doonay markaa bay tihi nicama wa quratu caynin wa quratu cayn wallaahi waa nicmad waana ku raaxaysanaynaa oo indhahayna ku farxaye waan siinay nebi maxamed markaasuu yidhi nebigu naftiisa uma rabo markaa bay tihi hadda ayuu u rabaa markaasuu yidhi julaybiiba saasay tidhi julaybiib markaasay tidhi may julaybiib ma siinin inantayada hebel baa soo doonay waan u diidnay hebel kalaa soo doonay waan u diidnay julaybiib waa ninkaa taqaanid adiguna ee magaalada madiine o dhan lagu hadal haye lagu ballamay inaan inanba loo dhisin waar julaybiib u dhisi mayne qof kale nebigu ha keeno hadalkaa markay ku tiru ninkii soo jeestay ayay inantii oo xagga dambe ku jirta ayaa tidhi hooyo aabba anigay dhegaysta ma nebi maxamed baad amarkiisa celinaysaan bay ku tidhi ma nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo aniga i bixiyey oo julaybiib yidhi siiya miyaad amarka nebi maxamed celinaysaan oo diidaysaan wallaahi bay tidhi hee halka uu nebi maxamed raalliga uu igala noqday aniguna raalli baan ka ahee i bixiya bay ku tidhi
markaasay ku tiri islaantii waa run hadalkaasiye orodoo nebiga u sheego ku dheh halkaad raalliga adigu baad kala noqotay inantayadii annaguna raalli baan kala noqonay markaasaa saxaabigii baa nebiga u yimid oo yidhi nebi allow inantii julaybiib waan siinay guurkii uu julaybiib u diyaar garoobayo ayaa waxaa dhacday fasca waxaa la maqlay cadow inuu soo socdo ciidankii baxayay buu markaa julaybiib u raacay markii la dagaalamay ee gaaladii la jebiyey la laayay ay baxsadeen ee meydkii dhaawicii la kala guranayo ayuu nebigu saxaabadii ku yidhi war anigu nin baan tabaya